السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaada Kabo Online Academy oo ka barataan cilmiga ICT-ga ee accounting-ga. Maanta waxaan isku dayi doonaa waxaan sii wadi doonaa website-keenii aan hore u soo bilownay dhowr cashar hore aan soo diyaarinay. Website-keena halkan ma noo joogay inaan soo sameynay header-ka ama qaybta sare waxa kale aan soo sameynay menu-ga waxa kale aan soo gelin logo. Maanta waxaan isku dayi doonaa bariin background-ka ka dhigno image ama sawir inaan background-ka xagga dambe soo muujiyo. background-ka marka doonaysa soo muujiso ana sawirka aad soo dhigaysa waxa soo diyaarsanay sawirkii waa kan sawirkaas doonayna soo dhigno background-ka xagga dambe sawirkan haddii aan eegno magaca qorno aan isku bedeli karnaa aan qornaa background bin qornaa waxa kale oo sameynaa waxaan eegi doonaa structure-kiisa ama nooc yahay waa PNG marka waxaan doonaa inaan intaas sameyno insha Allah nala socda insha Allah marka ugu horeysa waxaan sameynaynaa xagga ugu sareysa style-ka marka ugu sareysa halkaas aad tagaysaa kadib waxaad ku saabtay oo ah qaybta gudaha ee website-kaaga body uu leeyahay waa qaybta gudaha lagu qoro wax kasta marka body-gan soo gelinaa لكن صور background حابب نسوق لنا كده نحن عندنا background image معنا كده نحن عندنا URL نقطة كده نمجي بنسوق قرنا إنت لما دبعات أما single quotation بنقرنا كده نقرنا background بنعمل يسوق background بنعمل يسوق PNG kadib inta waxaan sameeynaa barnaamij safarana inaan noo soo galay in kala deegana waa kan waaweyn yahay waa soo galay sawirka laakiin aad u weyn waxaan sameeynaa halkaas hoos u soo deeganaa kadib waxaan oranaa background image waxaan oranaa waxaan oranaa cover inooga dhiga waxa kale oo sameeynaa height waxaan oranaa background position kana ka dhigana center inuu laga soo qaado waxa kale oo sameeynaa height inuu sameeynaa height kadib waxaan ku dhiganaa boqol VH waxa weyn cabir kamid ah cabirada lagu cabiro نوصل فرنا freshman ka way noo soo yaraaday taasoo loo soo kala waa very simple sidaas aad u bedelan kartaa background-ka inta doonaysa inaad background ka bedesho website-kaaga waxaa weeyaan wax kaliya loo qorayo waa afarta marka ugu horeysa wax soo gelinaysa image-ka oo sawirka waa inaad single quotation ka gelisaa URL-ka soo geli inta waa inaad ku forsamaysaa marka saddexaad xag ka soo kacaya position-kiisa iyo center-ka iyo height-kiisa height kula waxaan ka dhiganaa 100% soo noqday eegana kadibna save inana kadibna waa refresh baan ku dhiganaa oo yar weynaaday ilaa xagga soo tagay marka 100 yahay kaas ay ku fiican كانت بيتنا سيف وقع سيف عم نوصل مقضي طبعا شغال waxaan soo gelinay background-ki sawirkan laakiin xagga casra waxa ka arkaysaa in space yar u dhaxaysmay background-kaaga maxay sawirkan hoos xagga sare ka soo muuqday oo kan ay xagga kale ka soo kacay markaas inta uu qarino waxaan sameeynaa xagga min imanna buriga xaggiisa sare kadib waxaan furanaynaa calaamadan star bin oradna kadibna waxaan furanaynaa tan kadib waxaan qasan ku qoranaa margin 0 waxaan kala sameynaa padding 0 kadib waan safarana duwan eeg doona waxaa naga qarsoomay space-kii waxaa sare ka soo kacay ayuu naga qariyay ayuu means waxa weeyaan padding-ka amba inta maxaa u dhaxaysa sawirka iyo
iyo headka maxay zero ka dhigo wax space out haysiinin amba waxa meel u banaan oo haysiinin cashirkeeni ahaa maanta intaas aan kusoo koobnaa. Assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.